dowladda oo kulankan isagulaada jadiidkiisa inagoo rabaan aad taamulayaan mudanaha soo dhow baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay tahay inaan kulankan idinkula wadaago ama idinkala soo qayb galo xaaladda dalkana idinkaga warbixiyo iyo meesha uu marayo iyo waxyaabaha lagu soo aadan ee aan mustaqbalka dhow aan rajaynayna dalkeenu in uu wajaho oo uu maro wadada ay tahay inaan marno waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxa ay wali baacsanayaan cadawga khawaarijta waxaana xusid mudan in maalinta ka dambaysa dhulka ay cadawga ka saarayaan uu soo badanayo inkasta oo cadawgu uu ku haray meelo aad iyo aad u culus oo dhib badan oo cadawgu meelo uu ku gabado oo ku dhunta leh haddii ay yihiin dhul hawda iyo haddii ay yihiin dhul jeexjeex leh oo boholo iyo maxaan ku raaa godad lagu gabado leh hawsha sugidda amniga waxaa garab socotay dhisidda ciidanka qalabka sida tababarkooda qalabeyntooda nasiib wanaag maanta waxaan leenahay wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo muddo dheer kadib duuriya diyaaradaheena iyo kuwa haga diyaaradaha aan duuriyaha lahayn waliba khibrad dheerna ku yeeshay waayihii dambe oo dhan intii ay shaqada ku jireen waxaa sugidda amniga garab socday dadaaladaas oo xoreynta cadawga waxaa socdo dib u dhiska adeegyada bulshada dhulalkii laga xoreeyay cadawga sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo garoomada maxaan ku raadayay adeega dadka lagu gaarsiyo ee lagu gaaro dhulalka fogfog ee wadooyinkooda ay ciriir yihiin waxaa marna la iloobi karin geesidii Soomaaliyeed ee naftooda u horay inay dadkeenu nabad dalkeenu inuu nabad dadkeenu inay nabad ku noolaadaan kuwii ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintayna Ilaahay samir iimaan Allah naga siiyaan leenahay kuwa ka dhaawacana Allah bogsiyo waxa ballan qaadnay inaan daryeel la daba joogno hadba intii dawladda federaalka ee Soomaaliya awoodeeda iyo tabarteedu ay la egtahay guddoonka sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan u mahad celinayaa beesha caalamka oo nala garab taagnad nala garab istaagtay nagu garab istaagtay go'aanada aan gaarayna ee ahaa in aan ammaankeena hanano kana mira dhalno ciidankeenuna ay guuraan ciidamada shisheeye ee walaalaha ee dalka nala xoreeyay nala joogayna sidoo kale waan ka mahad celinaynaa waan u mahad celinaynaa dhammaadka sanadkan waxaa soo afjarmay joogitaankii ciidamada AMISOM ahay markii dambana ATMIS noqday labadii sano ee la soo dhaafay waxaa dalka ka baxay 7,000 oo askari oo ciidamadaas ka mid ah ATMIS dhammaan goobihii ay gacanta ku hayeen waxaa kala wareegay ciidanka qaranka Soomaaliyeed si kasta oo ay cadawgu isugu dayeen ma jirto meel ay dib u qabsadeen oo ka mid ah goobahaas lagu wareejiyay ciidamadeena qalabka sida waxaa soo afjarmay warxuma tashiilkii dadku lagu wareerin jiray ee argagixisada dalka ayay la wareegaysaa haddii ay baxaan ciidamada ajnabiga ah waa dagaal waxaan ku jirnaa dagaalne waji kastuu leeyahay maalin aad goob dagaal lagaaga guulaystay maalin ku guulaysto laakiin guud ahaan dagaalka dalka uu ku jiraayay jihada uu soo maray 17 sano oo dalkeenu ay haysteen nimanka cadawga kadib waxaa bilaaban doona sanadka cusub howlgal kale iyo mission kale oo la magac baxay AUSOM dawladda Soomaaliya waxay kala shaqaynaysaa ururka midowga Afrika iyo jabciyadda qurumaha ka dhaxayso tirada ciidanka goobaha ay ka howlgalayaan
iyo cidda ka mid noqonaysa ciidanka intaba Soomaaliya iyo waxaan rabaa inaan u noqdo Ethiopia Soomaaliya iyo Ethiopia waa laba dal oo daris ah kana dhaxayso taariikh dheer oo qarniyaal soo socotay in badan oo taariikhdaas ka mid ah ma aha mid aad u qurux badan oo nabad ku dhisan hase yeeshee waxyaabaha waayahan dambe rajo iyo ididiilo nabad ku wada noolaansho ayaa soo muuqanaysay waxaa nasiib darro ah hadda rajadaasi in ay mugdi ku jirto oo ay sidii hore aanay ahayn oo culaysyo badan ay hareerayeen kadib markii ay Ethiopia go'aansatay in ay kala dhantaasho midnimada dadeed iyo midda dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo horay gumaystuhu u siiyay qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ayay maanta haddana waxay damacday intii hartay qayb ka mid ah haddana inay la tagto goob kasta ayaan u istaagnay inuu mowqifkeenu caddaado annagoo matalayna shacabka Soomaaliyeed dalkii dibadiisa meel kastoo ay ku nool yihiin maanta jooga ee shacabka maanta jooga ee ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa dhalan doona intaba annagoo matalayno dantooda iyo masaalixdooda iyo magacooda intaba ku hadlayno si ay cid kale ugu takrifalin hantida ay leeyihiin ee dhaxalka awoowayaasha ah waxaan caddaynaynaa in cid kasta oo nala saaxiib ah oo nagu taageeraysa difaaca qarannimadeenna inaan la kaashan doono Ethiopia damaceeda ah inay geyiga qayb ka goosato iyo in ay si kama dambays ah u kala dhantaasho midnimada Soomaaliya kuma guulaysanayso si kasta oo ay isugu daydaba cabsi gelinta Ethiopia la'aanteed dalka khawaarijta ayaa qabsanaysa xaqiiqo ma aha khawaarijta haddaba annaga Soomaalida ah ayaa ka xoreysanay qaybo badan oo ka mid ah dalka nalama jirin Ethiopia hal maalinna madfac nooma ridin campaignka dagaalka hadda socda aan khawaarij ku jirno inta dhimanne waa ka xoreynaynaa intay doontaan nagu qaadato annagoo kaashanayno saaxiibada heelanka noo ah cabsigelinta amniga gobolka geeska Afrika ayaa xumaanaya oo khalqalgalaya waxaan cod dheer ku leenahay annagu ma ahin kuwa xumaynaya amniga gobolka geeska Afrika cidda diidan in lagu dhaqmo xeerarka caalamiga ah kuwa xeer goboleed kuwa dhaqanka ee curfiga wanaagsan ee diris wanaagga ah waa cidda maxaan ku yiraahdaayay gobolka geeska Afrika khalqalka gelinaysa Ethiopia iskuma heli karto inay ahaato xarunta ururka midowga Afrika iyo inay ku tumato ahdigii lagu aasaasay ururka midowga Afrika sida abwaankii Soomaaliyeed horay uu yiri war hooy dunida yaan lagu kibrina nabad ha loo daayo waxaan leenahay gobolka geeska Afrika nabad iyo wada deganaansho iyo daris wanaag iyo iskaashi ha loo daayo yaana lees haminin leeskuna leesma xoogi kare waxaan marar badan sheegnay inaan diyaar u nahay daris wanaag iyo iskaashi dhaqaale oo ku dhisan sharciyada caalamiga ah ee la isla ogol yahay dhammaan dalalka aan nahay dariska oo ay ku jirto Ethiopia inaan la noolaano nabad kula noolaano wanaag iyo dhaqaale wadaag iyo daris wanaag aan kula noolaano ayaa siyaasadda asalka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay tahay waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed madaxdiisa siyaasiyiinta aqoon-yahanka oo u istaagay difaaca badeenna iyo dhulkeenna ayagoo raacaya qaraarkii baarlamaanka ee bishii Janaayo 2024 halkan lagu gaaray guddoonka sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin dib u dhiska dhaqaalaha
Soomaaliya sida ay ka marakaceen hay-adaha maaliyadeed ee caalamka koror dhaqaale ayaa dalkeena ka jira wuxuu gaaray meeshii ugu sarreysay ee kororka dhaqaalaha sanadlaha Soomaaliya uu gaari karay 40 sano ugu dambeysay kaasoo ah boqolkiiba 4 inuu dhaqaalaheena kordhay sanadkii 2023 sanadkan weli uu socdaa inuu sii dheeraadana waa rajaynaynaa kororkaas waxaa keenay annaga oo soo hagaagayo dowladnimadeena oo kordhaysa fursadaha iskaashiga ah ee dhaqaale ee bulshada Soomaaliya iyo dalalka dariska iyo dalalka caalamka intaba oo soo kordhay ayaa fursado dhaqaale ku kordha dalka keena waxaa yidhi diilo weyn ina geliyay heshiisyada baarista shidaalka ee ka hana qaadaya maanta dalkeena ka faa'iideysiga khayraadka badeena horumarinta ganacsiga xoolaha iyo dhiirigelinta wax soo saarka beeraha intaaba waxay sabab u yihiin waxa maanta dhaqaalaheena caalamku markuu cabiray oo aqiray inuu kor u kacay 2.8 ayaan ka nimiday maantana waxaan maraynaa 4 berina waa ka sii kordhaynaa qorshaha NTB-da ee hadda dalka loo dejinayana 5 sano ee soo socoto dhaqaalaheena korsiimadiisa inuu 2 digit ama 10 ka badan inuu gaaro ayaan rajaynaynaa isbeddelkaas qaran ayaan rajaynaynaa yoolkiisaas 10% ah in ay wax badan nolosha shacabka Soomaaliyeed iska bedeli doonaan arrimaha siyaasadda labadii sano ee la soo dhaafay waxaa waqti badan aan ku bixinay in uu kordho isfahamka dadka Soomaaliyeed ee arrimaha masiiriga siyaasadeed ah shirarka golaha wada tashiga qaran waxay gundhig u ahaayeen in isfahamkaas loo bedelo sharciyo la hor keeno golayaasha qaybna ka noqda dhamaystirka dastuurka ee aan horay u ballan qaadnay waxaan soo gaarnay meel wanaagsan oo inoo suurto gelinaysa dhamaystirka afartii cutub ee dastuurka ayadoo cutubyadii kalena lagu howlan yahay hadda sidii ayagana loo dhamaystiri lahaa walaalayaal xildhibaanada qarankow waxaa hubaal ah in aanu jirin xildhibaan halkan fadhiya maanta oo u xiiso qaba inuu dib ugu laabto mar kale duruuftii doorashadii lagu soo doortay ee maanta uu halkan ku fadhiyo isaga oo si sharaf leh uga soo heli kara codka sharciga ah ee ku salaysan qof iyo cod uu ka helo dadkiisa oo sida dhabta ah u matalayo tan kale dalku inuu ka gudbo doorasho dadban waxay ahayd waajib dastuuri ah oo mar kasta duruuf jirtay awgeed looga baaqsan waayo in dib loogu dhaco golaha wada tashiga qaran wuxuu isla gartay in loo howlgalo in la xaqiijiyo waajibkaas dastuuriga ah muddo xileedka aan hadda ku jirno oo aan mas'uuliyadda hayno waxay noqonaysaa mas'uuliyad xumo haddii ay jiraan waxaan qiyaasiyaaba in aanay jirin dad qaba in doorasho dadban dalka dib loogu sii hayo dastuuri ma aha doorashada dadban dimuqraadina ka fog muddo ka badan 55 sano kadib ma jirto sabab maangal ah oo aan naga hortaagan doorashada qof iyo cod ah inaan dalka gaarsiino ma jirto sabab maangal ah oo aan ugu sii wehsanno doorasho dadban oo aan ahayn cabsi kala shaki iyo isku kalsooni la'aan ay qabaan siyaasiyiinteena qaar ka mid ah intaa kadib waxaa bogaadinayaa walaalaha Somaliland oo maalmo gudahood u dareeri doona doorasho dadweyne taas oo aan ahayn markii koobaad iyo markii labaad toona waxaan rajaynaynaa in ay nabad iyo guul ugu soo dhammaato doorashadaas annay u horseedo
deganaanshiyo iyo dimuqraadiyad. waxaa walwal nagu soo kordhiyey saacadihii maalmihii u dambeeyey ifafaalaha colaadeed ee ka soo muuqda meelo ka mid ah deegaanada Somaliland iyo Khaatumo, kuwaas oo aanan habboonayn inay sii socdaan. waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka, culamaa diinka iyo guud ahaan shacabka sharafta badan ee walaalaha ah in ay ka fogaadaan xumihii dhacay muddada weyn in dib loogu noqdo. waxaan sidoo kale bogaadinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ku guuleystay inay codkooda ku soo doortaan golayaasha maamulka degmooyinka ayadoo aanay wax dhibaato ah iyo culays iyo xumaana aanay ka dhicin. labadaas arrimood ee mathaaliga aan soo qaaday waxay daliil u yihiin rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee doorasho ku salaysan qof iyo cod inuu mid dhaba yahay. sidaas daraaddeed dalku in ay ka hirgeli karto doorasho qof iyo cod ah. wax la yiraahdo 100% waa saxna iyo 100% bakeerigu waa buuxa iyo waa eber waxba u dhaxeey. waxaan rabnaa ma rajaynayno in ay 20 milyan oo Soomaalida ay codayso, ma rajaynayno geed kasta iyo ceel kasta oo Soomaaliya ku yaalo inaan sanduuq intaan dhigna dadka jooga ay cod ku rajaan safarkan haddana soo hayo. laakiin safarka 1 kiiloomitir loo aadayo maxaa la yiri wuxuu ka bilowdaa Soomaaliya tallaabtii ugu horeysay ee doorasho qof iyo cod ah 55 sano kadib walaalayaal waa dow inaan qaadnay ayaan qabnaa. waxaan ku celinayaa oo aan cod dheer ku leeyahay ma jiro qof Soomaali ah iyo degaan Soomaaliyeed oo laga maarmi karo. sidoo kale ma jirto cid xaq u leh in ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku hayso goob aan lagu sii nagaan karin oo ah doorasho dadban. walaalayaal xildhibaanada sharafta leh, doorasho dadban waxay afqabataa garaadka kartida ay leeyihiin jiilasha dhalinyarada ah ee soo koraya, aqoontooda inay ku dhaqmaan, hamiga ay leeyihiin in ay gaaraan, in ay muujiyaan rabitaankooda, in ay muujiyaan hoggaanka iyo waxa ay ku qaracsan yihiin inay meel mariyaan, in ay muujiyaan dadkooda iyo degaanadooda in ay siyaasad iyo door ay ku leeyihiin inay maxaan ku meel masho. waxaan maanta halkan ka bogaadinayaa xubnaha golaha wada tagshiga qaran oo shirarkoodii oo dhan ku go'aamiyey in jihada doorasho toos ah loo jiheeyo dalka. waxaa nagu weyn in aan weli sii baadi goobno ciddii naga maqan si aan is-afgarad u gaarno, annagoo mar kasta u marayno waddo walaaltinimo, wada hadal iyo isu garaabid iyo garnaqsi. guddoonka sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed, golayaasha sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hogaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah. haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran, baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah, weliba bisha hore oo soo horeysa 2 bilood, uu u huro qadiyadaas weyn ama dib u dhigto bishiisa haddii horistu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan ku bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho. sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso. haddii kale fawdo iyo isbarbaryaac iyo isqabqabsigii iyo wixii aan horey u soo naqiinay waayo.
waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu nagu garab galo dhammaanteen tamiro dhalinta xilka aynu u dhaaranay dhammaanteen walaalayaal Soomaaliya inta aqalkan fadhida ayay maanta hiilo uga baahan tahay waxaad ugu hiilinaysana dan yaroo adiga maanta aad leedahay maaha mid yaroo nin aad raalli ka ahayn ama aad necab tahay oo leeyaho diidaysid ma aha jiirasha Soomaaliyeed ee maanta jooga meel kastoo ay ku nool yihiin iyo kuwa mustaqbalka imaan doona dhalan doona ee weli aanan dhalanin sida ay u noolaan doonaan ayaa ilaahay wuxuu fursad inoo siiyey dhammaanteen mustawa kasta aan mas'uuliyadda ka joognay inaan go'aamino go'aanka noocaasa go'aan aad iyo aad u fudud oo sahlan ma aha caadifadayaanayna qaadin carayaanayna qaadin maalinaan kala ra'yi duwanaanayaanayna qaadin waddadaas dheer oo masiirka ummadda aan fiirino waan guulaysanaynaa ilaahayna wuuna jecel yahay wuuna muujiyey markaan isku ummad noqonnay isku af noqonnay isku diin noqonnay isfahamkeena aanan muxuu ahay uu si sahlan u yahay isku hab nololeed aan noqonnay oo aanan kala nolol duwanayn nimco uu diinta islaamka ilaahay oo haddana kulligeen nagu wada manaystay nimco ka weyn oo bini aadamka adduunyada ilaahay ku silaa malaha waxaa intaa noo dheer dal barwaaqa ah oo wax kale iska daaya meesha uu ku yaallo keliya ay dhaqaale aan caadi ahayn ay tahay dahab ay tahay oo waxa gudihiisa dhulka hoostiisa ku jira aan la qiyaasi karin oo dhulka korkiisa inta saaran 9 milyan oo hektar oo beeraha laba webi roobabkooda leh ay joogaan 3,300 kilomitir oo xeeba leh qaaradda Afrika saddexda meelood ee malaayga ugu qaalisan kalluunka ugu qaalisan adduunka oo ku tarmo mid ka mid ah dalkeena iskale labada kalena laba wadan Afrikaan inta kadib inaan baahi ugu sii dul noolaano waa cilad iyo ducfi annagu aan leenahay cilada iyo ducfiga noogu weyn inaanan caqli lahayn maaha inaanan shaqaysanayn maaha daara waa dhisan naqaana baabuur qurxan waa gada ognahay annagoo 34 sano dhibaataysnayn maanta dalalka Afrika ku yaal in badan oo kamid ah waa ka fiicanna kursimada dhaqaalaha waa dheerna magaaladeena hadii la dul maro iyo magaalooyin aan weligood dagaal sokeeye ka dhicin oo caasimadaha markaa dul marta farqi aan caadi ahayn magaaladeena yaad ka dareemay weliba muddoonka sanooyinkan dambe sidaas daraaddeed siyaasadda waaya dabarka nagu xiran dabarka siyaasadda ee dalka ku xiran aan ka furno aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh